faa'iidooyinka iyo khataraha maadada calcium. Waa maxay maadada calcium-ka ee jirka? Calcium-ku waa maadada ugu badan jirka markii la barbar dhigo maaddooyinka kale ee jirka. Wuxuu dhex qooshan yahay oo laga helaa lafaha iyo ilkaha. Wax yar oo aan saas u badnaynna waxaa laga helaa murqaha, una sahla kala baxooda. Shaqada calcium-ka uu ka dhexeeyo jirkeena ayaa ah korinta iyo kobcinta lafaha iyo ilkaha, gudbinta hormoono badan ee dheecaamada jirka, kala baxa murqaha, iyo gudbinta dareemaha maskaxda. Ilaha laga helo. Isha ugu weyn ee aad ka helaysid maadada calcium-ka waa caanaha iyo wax kastoo caano laga sameeyay. Cuntooyinka kale ee aad ka heli kartid waa digirta, kalluunka, kaabashka, iyo ibta weyn ee ku dhex jirta ukunta. Mugga aad u baahan tahay maalintii. Dadka waaweyn ee ragga iyo dumarka ah waxaa looga baahan yahay 800 milligaraam maalintii, halka hooyada uurka leh iyo hooyada dhalmadeyska u dhow looga baahan yahay inay qaadato 1.5 garaam maalintii, taasoo ay ka dhigan tahay in hooyada uurka leh looga baahan yahay inay hesho calcium ka badan kan dadka caadiga ah. Xanuunka uu keeno. Heerka calcium-ka ee dheecaamada qofka caadiga ah waa 9 ilaa 11 milligaraam per deciliter. Haddii heerka calcium-ka jirkaaga uu ka hoos maro 7 milligaraam per deciliter, waxaa ku saameynaya xanuunka tetany, oo ah murqo xanuun joogto ah. Murqaha oo markay kala baxayaan sameeya xanuun. Sidoo kale, xanuunada laga dhaxlo calcium-ka oo jirkaaga ku yaraada waa xanuunka osteoporosis, oo ah lafaha oo uu ka dhamaado calcium-ka, iyo miisaankii lafta oo wiiqmata, taasoo khatar weyn u horseeda lafaha sida jajabka.